وأجد فيسبوكي مركو هو بروفايل وها لكن هذا وحيسو بدلي بيج أيو سو بدلي أو تدوكن أوقف أيا كحرن لحدن كمان يقول بيس والله ببلوده وإن الله ده كون قف أو فلاور أو كصوب وقته أما كون قف أو فلوجرس وإن الله ده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي السودو هذا والبودا فادريدا كجوكتان channel كذا ونسوا نونو كذا إن شاء الله ما نصح مقال عصمة ينو هذا إن فيسبوك سوا لو سعتان أبديت أيا لوسمي وحل سوكر دي وحلو يقانو professional mood ayaa la soo gudbiyay marka waxa la sheegay professional mood kaas in lacag laga sameyn karo qofkii criteria buuxiyo marka maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay waa maxay professional mood kaas sideen ku isticmaali karaa maxaa criteria laga baahan yahay sideen lacag ugu sameyn karaa criteria laga baahan yahay inta gaarto ama shuruuda ku xiran inaad lacag ka sameyso dhammaan waxyaabahaas oo dhan waxaan ku arki doonaa insha Allah muuqaalkeena fadlan hadaa channel ku cusub tahay subscribe noo saar sidoo kale muuqaalkan noo like garay إن شاء الله إلى دمات كنا للجوب سأد واحد بدنا ندوه فايد مقال كان دمات كان مقال كان وحنكوسين دونا هنت أما ودو at فيسبوك بيج لعق وسمين كرت إن شاء الله مركا سودو هذا أنكو حسوسين مركا لأن المقال لايك صارتو سو أصحاب فربنا وجارو آدي هذا وما حسنتاي مركا صاحب مقال كان يعني نسكب بلاونينا يعني حاجة مركا جوكتد وحرادين يسا فيسبوك أي رادين يسا فيسبوك مركا سا أصوغشو ان فيسبوك gaagi asaan usoo dhaxgasho hadda saa u jeedin ciwaankayga Facebook ayaan soo dhaxgalay oo ku dhex jira marka kan waa profile-ka caadiga ah oo Facebook profile-ka caadiga ah taqaanin way saa u wada jeedan isla Facebook-ga profile-ka ayaad u bedelaysaa page si page-kaas dab hadhow hadii uu criteria buuxiyo lacag ugu sameeyso marka balaan ku tuso qaabka aad u bedeli karto kadibna aan fiiriyo criteria laga baahan yahay si uu Facebook page-kana lacag u sameeyo saaxib hadda profile-kan ayaan page u bedeli doonaa waxaan ku dhufanayaa xagaas kadib waxaan ku dhufanayaa isla profile-kii kadib waxaan ku dhufanayaa saa u jeedin saddexda gees calaamadaas yar ee saddexda gees ah ayaan click siinayaa taa markaan ku dhufto saaxiib in sidaan u soo galo waa u jeedaan waxaan soo galay qaybta profile-kii setting-kiisa xagan waxa ku qoran saaxiib turn on professional mode ayaa ku qoran saa u jeedid aan kugu celiyay mar labaad waa turn on professional mode marka professional mode kan hadaan click ku siiyo Facebook profile keygan wuxuu isu bedeli doonaa page kaasna hadii uu shuruud gaaro waxaan ka sameyn doonaa lacag marka bal aan ku dhufto hadda on page u bedelo xagaas ayaan click siinayaa marka wuxuu leeyahay bal akhri turn on professional mode add new tools to your profile so that you can grow as a creator on Facebook wuxuu ku leeyahay waxyaabahan oo dhan turn on ka dhig si macnaha waxa waay aad u noqoto Facebook creator ama qof Facebook waxa waay content creator ama muuqaal sameeyo ku noqdo kadib saaxib unlock new ways to get paid marka saddexdan shay ayaa muhiim ah inaad kala fahanto hadad turn on professional mode aan ku dhufto waxa waay waxa unlock uu leeyahay furo wado cusub oo lacag ku sameeysan karto sidoo kale see how your posts are performing arag sida postigaaga ay u shaqeynayaan iyo waxyaabaha soo dhigto let more people follow you si dad badan ay kugu soo raacaan turn on professional mode marka saddexda faa'iido ugu weyn marka xagan ay ku qoran tahay turn on ayaan ku dhufanayaa turn on ayaan ku dhuftay turn on kan ku dhufto marka profile-kaygi wuxuu isu bedeli doonaa Facebook page ayuu isu bedeli doonaa start exploring ayuu dhahay click baan ku siin marka saa u jeedid professional mode-ki your profile has a professional tools so you can grow a sector baa lagu dhahay marka hadda waxay ka dhigeen daan baan dhahayaa xagaas ku dhufanaysaa profile-ka dhexgalaysaa kadib waa u jeedaa Facebook-gii marka hore profile uu ahaa laakiin hadda wuxuu isu bedelay page ayuu isu bedelay oo 7000 oo qof ayaa ku xiran ana 3000 oo qof ayaan ku xiranahay marka waa profile-kii Facebook caadiga ah ayaa wuxuu isu bedelay waxa loo yaqaano professional mode marka qaabkeen lacag ugu sameyn karaa way su'aash iyo criteria maxaa laga baahan yahay si aan Facebook aan lacag ugu sameeyo kadib isla xagiisa aan ku laabanayaa xagga markaan ku laabto kadib saaxiib saa u jeedaan xagga aan ku laabanayaa xagga markaan joogo waxaan ku dhufanayaa waa maxay meeshaan ay ku qoran tahay professional mode meesha ku qoran tahay si waxa waaye aan u jeegarayo waxyaabaha laga baahan xaggaas ay professional dashboard ku qoran tahay ayaan click siinayaa xagga markaan ku dhufto aan click siiyo marka bal waan ogaanaynaa marka criteria laga baahan yahay sida qaabka lacag uu sameyn karo horta professional mode kan ama professional dashboard kan lacag waa laga sameeyaa laakiin waxa loogu sameeyaa waxa loo yaqaan star xidiga ayaa lagu siinayaa
oo dadka ku soo booqdo ayaa xidigo ku siinay xidigahan ay ku siiyaan ayaa adna lacag lagu bedelayaa oo waxaad qaab ku helaysaa waxa loo yaqaan Facebook Reels aad muuqaalo soo dhigaysaa kadib dadka xidiga ay ku siinayaan xidigahan ay ku siiyaan ayaa adna lacag lagu bedelayaa stars ayaa loo yaqaan saa u jeedid waatan waa stars ana hadda wuxuu leeyahay criteria not met ayuu leeyahay oo criteria wali maadan buuxin marka bal istaradan maadaama waxa professional dashboardka lacag laga sameeyna ay tahay bal aan jeegray waxa ay yihiin kadib star ayaan ku dhuftay marka criteria lagaaga baahan yahay labada ugu waaweyn waatanaha waxa loo dhahay hadda waxa lagu dhahay you are not eligible the following criteria must be met hadda adiga maadan buuxin criteriadan waa inaad buuxisaa baa lagu dhahay hal baan buuxiyay waa laba criteria mid baan buuxiyay half 1000 followers for 60 consecutive days 60 maalin ugu dambeysay oo laba bilood ah waa inaad leedahay 1000 qof oo follower oo ku soo booqato ama 1000 qof oo ku follow gareyso waa inaad leedahay kadibna live in eligible country waa inaad ku nooshahay wadamada eligible ka ah marka criteria waa criteria dhamaanteen East Africa dadka jooga ama Soomaaliya Ethiopia kulli meel walba ay joogaan aynan buuxinaynin oo aan lacag kaga sameyn karin marka bal waxaan jeegareynaynaa eligible country wadamada u qalmo inay lacag ka sameeyaan oo starkan xidigahan lacag lagu siin karo ayaan jeegareynaynaa kadib eligible baan ku dhufanayaa eligible country ayaan ku dhuftay marka wadamada ayaan xagan ka fiirinaynaa aan lacagtu ku heli karno wadamada saa u jeedid waxa uu dhahay these are the eligible region for Facebook non-gaming partners dadkana u jeedin waa dadka eligible ka ah ee ku heli kara Facebooka non-gaming partners and game kan ciyaarin laakiin aan ku heli kara oo ku heli kara macnaha qaab lacageedka waa Argentina Australia Belgium saa u jeedid India Italy Malaysia Mexico xagana waxa uu dhahay these are eligible regions for Facebook gaming level program kuwana waa dadka game ka ciyaara sida qaabka game ahaanta ah lacagta ku heli karo waa Kenya waa Egypt waa Madagascar Morocco Nigeria Sudan saa u jeedid marka East Africa dhan waxa kaga jirta Kenya hadaa joogtid starkaas lacag waa ka sameyn kartaa koow waa inaad 1000 followers haysatid labana waa in macnaha waan aad Kenya ku nooshahay East Africa dad ku nooshahay inaad Kenya ku nooshahay marka Asia wadamadan aa u jeedid ayaa waxa waay uu ka shaqeynaya programkan marka wadamo uunan ka shaqeynaynin waa jiraan wadamada uusan ka shaqeynaynin kuwana kamid ah the following countries do not support the ability to send stars wadamadan hadaa joogtid maba awoodidba inaad soo dirto wax loo yaqaan star waa Crimea kamid ah Cuba Iran North Korea South Korea Syria Russia wadamadan oo dhan hadaa joogtid marka ayadan sidoo kale wax lacag kama sameyn kartid marka dadka Soomaaliya Ethiopia jooga sidoo kale East Africa ama Uganda jooga lacag kama sameyn karaan Tanzania dadka jooga lacag kama sameyn karaan only Kenya ayaa loo ogol yahay inay ka sameeyaan waliba Kenya waxa qaab gaming ayaa lacag ugu sameyn doontaa oo dadka gameka ciyaara ayaad kamid noqonaysaa marka waa rajaynaa saaxiibay inaa wax badan ka fahantay Facebook professional dashboard kan lacag waa laga sameyn karaa laakiin laba criteria ugu weyn koow waa inaad 1000 followers haysatid labana waa inaad ku nooshahay wadamada eligible ka ama criteria loo ogol yahay kadib muuqaalada soo dhigto dadka rate ay way rate gareyn doonaan ama xidiga ay ku siin doonaan xidigahaasi ayaa adigana lacag lagu bedelayaa marka sidoo kale Facebook page iyo dashboardka way kala duwan yihiin Facebook page kana criteria uu leeyahay criteria ugu muhiim waxa waa 10000 oo followers inaad leedahay iyo 60 maalin ugu dambeysay 600,000 oo daawasho ah waa inaad hesho marka saaxiib soo dhawow waa rajaynaya muuqaalkan wax badan ka faa'iiday fadlan aan ku xasuusiyo subscribe kaada waa noo muhiim sidoo kale muuqaalkan like gareyso aad iyo aad muhiim tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh